golaha wakiiladu wuxuu ansixiyey shalayto ansixinta wax ka beddelka kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer lambar 91/2021 iyo ansixinta lifaaqa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda sidaad la socotaan habka mashruuc sharci ee labada gole marka golahan uu ansixiyo xeerar aan ahayn kuwa maaliyadda wuxuu u gudbiyaa golaha guurtida u gudbiyaa golaha guurtida markaa xeerka labada markaa iyaguna ama wax ka beddel ku soo sameeya dabeedna waxay ku soo celiyaan golaha wakiilada marka lagu soo celiyo wax ka beddelkay guurtida ku soo sameeyaan ayaa golaha wakiilada wax la yiraahdo akhriska saddexaad ayuu u codeeyaa ama uu ku raacaa ama uu ku diidaa waxaan idin sheegaynaa maanta oo ay bishu tahay 20 waxaanu gudbinay oo xogayaha guud farta ka saaray labadii xeer ee golaha wakiiladu shalayto ansixiyay ee kala ahaa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer lambar 91/2020 iyo xeerkii ahaa lifaaqa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda labada xeer procedure-kii uu mari jiray ayay marayaan gudoomiyuhuna wuu saxeexay xogayaha guudda wuu saxeexay labada xeer saacadda laga bilaabo waxaad kala xiriiri kartaan golaha guurtida oo u yaallo aad baad u mahadsantihiin thank you very much